بسم الله الرحمن الرحيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ولا ريال أيضا أنت بدن سبع الليلة qaasatan dadka qiraa'aha abi camarka akhriyo ayadan qalad ayaa ka jirto. qaladkaasoo ah dadka qaar waxay ku istaagaan yowma alxaji alakbari ana allaha barii'un min almushrikiina warasuuluh, waayo warasuuluhu jiin ayaa saaran oo jaa-iska jiinkaas idiin muuqdo waxaa waaye meesha qur-aan ku aragtid waa istaagi kartaa, laakiin haddii macno ahaan uu isdhin maayo ma istaagi kartid. sida baabuurka meesha baarkinka loogu talagalay haddii dhisma ka socoto oo lawilaa meesha dhisma ka socoto lagugu qoro baarkinkii lagugu talagalay waa ka tegay meel kale ka raasiya, sababtoo ah caqabadaa timid oo baarkinkii baabuurka ka hor timiday. sidaas daraaddeed caqabada taas lamid ah waa rasuuluhu haddaa istaagto waxay naqalee in allaha barii'un min almushrikiina warasuuluh, ilaahay mushrikiinta beri ayuu ka yahay, warasuuluhu rasuulkiisana beri ayuu ka yahay, walciyaadu billah. muga qirada abi xafsaha haddii aad damooto in allaha barii'un min almushrikiina wuxuu warasuuluh meeshaas min almushrikiina warasuuluh isku bixisoo ka dhiga, sababtoo ah min almushrikiina laanka saari maayo oo laanka hadda idiin muuqdo abi camarka uu saaraayo laankaas oo laam alifkaas meesha qur-aanka ku aragtid lama istaagi kara, waa la socdaa, masti waa inaad socotid. muga abi xafsaha laankaa saari maayo, wuxuu saaraa kaliya jaa-iskaasi ay ka midaysan yihiin, oo jaa-iska haddii loo aqriyo waxay naqanee waadaanu min allahi warasuulihi ila annaasi yowma alxaji alakbari ana allaha barii'un min almushrikiina warasuuluh fain tubtum qofka kala qaadanayo, ama qofka waa istaagiyey fain tubtum horusii qaat. istaaggaas muga waa adigoo tiri ilaahay mushrikiinta beri ayuu ka yahay, rasuulkiisana beri ayuu ka yahay. waa qalad, ha ku istaagin, caadi u soco. waxay lamid tahay laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wa naxnu agniyaa alramayno. haddaad tiraa ka waran laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiir, haddaad tiraa ka waran waxay naqanee ilaahay waa faqiir haye wanaxnu agniyaau sanaktubu maa qaaluu, anunkuna waxaan nahay aqniyo iyo qani. sax ma taha hadalkaas? walciyaadu billah, diintaa uga baxeeba haddii aad kas u tiraahd. muga sidaas daraaddeed istaagga hadda warasuuluhu ku jiro istaag ma ahan, jiinkaas in laga socdo waayo. muga laba ayaa noo bannaan, haddaanaa suwacley laba ayaa noo bannaan. labada noo bannaan waxay tahay koob inaad dhahdid وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، ونو لانكاس أيضا كتالو أد استاغتو لانك وحا كتلا استاغن، لكن انت أدو رسوله كو استاغي لهد لانك كو استاغ هدي لباد لب كلمان مد فضل أيا لغاتا. إن أد لانكاس كو استاغتو وآد تلادو إن الله بريء من المشركين قف كان أويلاه qofka kalena u qaato warasuuluhu fain tubtum, taas waa meel oo laftigeeda waa khada, laakiin waxaa khasii khada badan inaad tiraaho ilaahay rasuulkiisa beri ayuu ka yahay, walciyaadu billah. taas waa baab inaad min almushrikiina ku istaagto, kutubkana ka dhigi ma aayad, laakiin go-aankaadaa iskale. iyo baabka kaloo ah ugu fiicane ah inaad laga soo bilaabo waadaanu min allahi warasuulihi ilaa laga gaarayo hubashir kafaruu bicadaabin caliim, inaad isku bix ka dhigato oo aadan ba istaaginba. maxaa yeele qur-aanka in aad aayad loo qaato qasa ma ahan, annankaa ku heshiina aad aayadda maahane qur-aanka in aayad loo akriyo wax hadda qasab hoose banayhayaan baa qasab ka dhigaya ma jiraan, laakiin annagaa ku heshiinay wax haddii dadka ka dhexeeyaan in loo qeybsado qaando oo matalan badaraa waxaa lagu soo guray weel, qof kastaba qaando in gacanta loogu shubo waayo, haddii kale waa la kala booba walema meesha dagaalaa dhacay. muga si aan loo kala boobin qur-aanka ilaahay oo aan la isugu dagaalin ayay macalimiinta iyo culimmadii waxay noo jideen in loo qaato aayad aayad. ajri xasanaad allaha siiyo qiyaamaha la ugu nuuriyo. muga
qasab hadday timaado inaan aayad la qaadan waa ka tegi kartaa, waayo qur-aanka hadda meelo badan ayaa ku jirto oo aan aayad iyadoo ay tahay aayaddii haddana aan loo akrin ee laga gudbo, sida hadda fi dunya walaakhirati wayasaluunaka can lyataama qul islaaxun lahum khayrun, meeshaas lacalakum tatafakaruuna aayad waaye, fi dunya walaakhirana waa aayad bilaabaysa, laakiin anunku haddaan naha subacley waa isku wada qaadanaa. muga qasab ma ahan inaad aayad u qaadatid, laga soo bilaabo wa aadaanu min allaahi ayaad waxaad aad ka dhigi kartaa kafaruu bicadaabin caliimin, halkii aad ka dhihi laheed in allaha barii'un min almushrikiina warasuuluh fain tubtum, khada weyn waa meeshaas. waxaan isku ognaha insha allahu tacaala muga laga soo bilaabo wa aadaanu min allaahi ilaa laga gaarayo kafaruu bicadaabin caliimin inay ahaato hal aayad, amaba maahane wa aadaanu min allaahi warasuulihi ila nneesi yowma alxaji lakbari ana allaha barii'un min almushrikiin in laga dhigo aayad, inkastoo kitaabka camraha oo mobeelka inuu aayad ka dhiga ayaan rajeynaa min almushrikiina, laakiin xataa hadduusan aayad ka dhigayn in aayad laga dhiga meeshaas oo warasuulu toos loo bilaabo ayaa ka khayr badan intii la dhihi lahay warasuulu intii lagu simi lahay. waxaan sugnaa insha allahu tacaala muga laga soo bilaabo waadaanu min allaahi kafaruu bicadaabin caliimin aayad laga dhigo, ama barii'un min almushrikiin aayad laga dhigo, amaba maahana gudba xataa barii'un min almushrikiina warasuuluhu fain tubtum fahuwa khayrun lakum dhe xataa, sababtoo lakum meeshaas silidaas idiin muuqato waxaa bannaan inaad ku istaagto, inaad socotana waa fiicantaha, laakiin waxaa ka habboon meeshaad ku istaagi lahayd warasuuluhu inaad waddo kala keensato, lakum ku istaag waa lagu ogolyahay, min almushrikiina xoogaa waa la diidan yahay, laakiin halkii aad ku istaagi lahayd warasuuluhu tanaa ka habboon. hada wabillahi towfiiq, assalamu calaykum waraxmatullahi.